بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله waxaynu ku guda jirnay casharadeenii anatomy and physiology-ga maantay waxaanu qaadanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo chapter ka mid ah chapterada aadka muhiimka u ah oo la yiraahdo endocrine system waa system ka hadla hormoonada iyo dheecaanada wuxuuna ka kooban yahay glands oo ah qanjiro kala duwan oo widely separated ah mid walba midka kale uu ka duwan yahay with no physical connections wax ka dhaxeeyana ma ahan xiriir oo toos ah kama dhaxeeyo oo structure walba gaarkiisu u shaqeeyaa hormoonka ama endocrine system marka laga sheekeynayo uu ka duwan yahay systemyada kale waxaa dhici karta inay xarka isku xirxiran ay yihiin laakiin kani waa dheecaan la soo deynayo dhiigu soo raacayo meel kale laba meel jirkeena ka mid ah oo aad u kala fog ayaa waxaa dhici karta inuu ka kala shaqeeyo endocrine glands are groups of secretory cells waa koox unugyo ah wax soo daaya surrounded by waxaana ku hareereysan xididdo aad u fara badan extensive network of capillaries xididadaas waxay suurto geliyaan hormoonku inuu soo raaco oo diffusion of the hormones ama chemical messenger fariimaha hormoon dabcan waa fariin ka tarjumaysa arrin markaasi loo baahan yahay in la qabto marka hormoonkaas oo ah ama chemical messengerkaas oo kasoo tegay from secretory cell oo kasoo tegaya yani qanjirkii ama unugii wax soo daynayay soona raaci doona into the blood stream ama dhiigga soo raacaya they are also referred to as ductless glands waxaa kaloo loo yaqaanaa qanjirada marka la kala qaybinayo laba qaybood oo loo qaybi jiray kuwa waxaa la yidhahdaa ducti glands qanjirada tubooyinka leh kuwan waxaa loo yaqaanaa ductless glands qanjirada aanan tubooyinka lahayn oo dhiigga wixii ay soo daayeen dhiigga ayaa usoo qaada so they are referred to as ductless glands waxaa loo yaqaanaa inay yihiin qanjirada aan tubada lahayn sababtoo tahay because hormones diffuse directly into the blood stream maxaa yeelay hormoonadu dhiigga ayay toos ayay u raacaan hormones kadibna carried in the blood stream to target tissue and organs that may be quite distant hormones kadib waxay soo raacayaan dhiigga waxaana la keenayaa target tissue waxa waaye meesha oo hormoonkani ka shaqeey rabo waaye iyo xubinta markaas uu ka shaqeey rabo waxaa dhici karta inay tahay quite distant meel hormoonka laga soo daayay iyo meesha targetka inay aad u kala fog yihiin dhici karto where they influence cell growth waxay ka shaqeyn karaan hormoonadu dhinaca unugii inay koro inuu growth sameeyo iyo inay la sameeyo processyada jirka dhaca ee metabolismka ee waxshiidka ama wax burburinta ama wax dhisida ah although the hypothalamus is classified as a part of the brain inkastoo hypothalamus uu ka tirsan yahay maskaxda haddana saas oo tahay wuxuu ka shaqeeyaa endocrine ahaan u shaqeeyaa oo ah qanjir ahaan u shaqeeyaa endocrine gland ahaan u shaqeeyaa maxaa yeelay wuxuu controlaa oo hypothalamuska uu controlaa maamulaa pituitary glandigana waa ogtihiin waa qanjirada dhan gudoomiyahooda ah master of glands ayaa loo yaqaanaa ama sayidul qudad ayaa la dhahaa it controls the pituitary gland wuxuu controlaa waa moogtahay waa hypothalamuskiiya wuxuu controlaa pituitary glandiga qanjirka la yiraahdo and indirectly influence many others sida darteed qanjiro kale oo fara badanna si aanan toos ahayn ayuu u saameeyaa maxaa yeelay pituitary glandiga hadduu amrayo qanjirada kalena waxaa sii amraya waa pituitary-ga when hormone arrives at its target cell markuu hormoonka uu yimaado meeshii oo targetka u ahayd wuxuu qabsanayaa receptor waaye mar walbaba macnaha meel oo unugan u socday hormoonka markuu yimaado dhiigu meesha keeno hadda meel uu ka bilaabaa laga rabaa wuxuu marka ku dhagaa receptorka hormoon walba wuxuu leeyahay specific receptor kadibna where it acts as a switch markaas wuxuu u shaqeynaa sidii fure camal daaradami camal wax daari kara markaas wuxuu daari karaa marka chemical reaction ama metabolic reaction oo cellkaas oo targetka ahaa metabolismkiisa inuu shaqo kamida ka qabto inuu daaro whole chemical reaction ka dhici lahaa inside the cell ayuu suurtagelinaa hormoonka qanjirka ugu weyn qanjirada ee la yiraahdo pituitary glandiga iyo hypothalamuska ayaan baranaynaa the pituitary gland and the hypothalamus act as a unit pituitary glandiga ma ahan qanjirka ugu weyn yani weyn markaan leenahay size-ka kama wadno haddii weynin tahay size liverka qanjirka ugu weyn ah laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa waaye
waa gudoomiyaha qanjirada macnaha isaga ayaa amar bixiya oo u taliya oo madax u ah hogaamiye u ah macnaha qanjirada oo dhan ay ka amar qaataan isagana wuxuu kasii amar qaataa hypothalamuska marka so the pituitary gland and hypothalamus act as a unit way wada shaqeeyaan waxay ka wada shaqeeyaan regulate gareeyaan activity-yada oo dhammaan qanjirada oo dhan activities of the most of the other glands wuxuu ka kooban yahay waa pituitary glandigiiye two main parts laba qayb oo waaweyn uu ka kooban yahay oo siyaabo kala duwan ama meelo kala duwan ka kala yimaaday waxaa jirto pituitary laba loo qaybiyaa waxaa jirta mid la yirahdo anterior pituitary iyo mid la yirahdo posterior pituitary anterior pituitary waxaa loo yaqaanaa adenohypophysis loo yaqaanaa adenohypophysis waxaa waaye waa an upgrowth of glandular epithelium from the pharynx and the posterior macnaha waxaa waaye waa structure kasoo ambaqaadmay epitheliyada oo pharynx-ka ayuu kasoo samaysma halkaasuu ka yimid isaga dhanba kan kale ee laleeyahay posterior pituitary-gana waa qanjir kale ama qayb kale oo ka tirsan pituitary glandiga waxaa loo yaqaanaa neurohypophysis maxaa yeelay wuxuu kasoo farcamay nervous systemka from the brain uu ka imaada maskaxdu kasoo ambaqaadmay saa darteed marka waa neerfa camal oo kale waa posterior pituitary-ga halka oo anterior pituitary uu qanjir camal yahay marka labadooda waa iska qanjir oo hormoon ay soo daynayeen marka haddii lagu weydiiyo pituitary gland meeqa loo qaybiyo waxaa leedahay anterior pituitary iyo posterior pituitary waxaa kale magacyadooda sidoo ma kala naqaano anterior pituitary waxaa loo yaqaanaa adenohypophysis posterior waxaa loo yaqaanaa neurohypophysis iska ilaaliya marka influence of the hypothalamus onto the pituitary gland saameynta uu ku leeyahay hypothalamuska saameynta uu ku leeyahay pituitary glandiga waa maxaa sidee influenceha uu leeyahay hypothalamuska uu ku leeyahay pituitary glandiga waxa ay hypothalamusku wuxuu controlaa the release of hormones from both the anterior and posterior pituitary hypothalamuska waa meesha laga maamulo laga controlo soo deynta dheecaanada guud mid walba oo ka imaanaya anterior ha ahaado ama posterior pituitary mid korba ha ahaado waa loo taliyaa waxaana maamula hypothalamuska asagoo isticmaalaya wadooyin kala duwan in different ways okay secretion of anterior pituitary hormone anterior pituitary hadda la bilaabay waxaa maaragtay uu ku xigsadaa stimulation of the gland by specific releasing hormone produced by the hypothalamus macnaha anterior pituitary hormone in la soo daayo waxaa stimulate gareeya wax soo deyn ama releasing hormone dheecaan ama hormone laga soo daayo from the hypothalamus magacyada loo yaqaano dheecaanada laga soo daayo hypothalamuska ee amarka siiya pituitary-ga waxa waaye releasing hormones ala dhahaa releasing hormones marka waxa soo daayo produced by the hypothalamuska ayaa soo daayo markaas waxay saameynayaan anterior pituitary in wax soo daayo and carried to the gland through the pituitary portal system waxaana ay isku soo marsiiyaan shabakad yar oo la dhaho portal system oo isku xirta pituitary glandiga iyo hypothalamuska waxaa hadda aan baranaynaa insha allahu tacaala qanjirka anterior pituitary-ga dheecaanada uu soo daaya mid kamid ah oo loo yaqaano growth hormone qanjirka anterior pituitary-ga la yiraahdo hormoonada uu soo daaya mid kamid ah weliba kuwooda ugu muhiimsan ayuu kamid yahay growth hormoneka growth hormone marka muxuu yahay waa unuga ama waa hormoonka ugu badan oo anterior pituitary uu soo daayo it is the most abundant maxaa la yiraahdaa waa midka ugu badan it is the most abundant hormone waa hormoonka ugu badan synthesized by the anterior pituitary uu sameeyo it stimulates growth wuxuu ka shaqeeyaa isaga oo stimulate gareeya kobaca ma magaciisa ka fahmaysiin growth hormone allah hormoonka korinshaha wuxuu ka shaqeeyaa growthka wuxuu kaloo ka shaqeeyaa division inay isqaybiyaan the most body cells unugyada jirkeenu inay isqaybiyaan isbadiyaan but especially wuxuu si gaar ah uga sii shaqeeyaa korinshaha ay sameynayaan the bones and skeletal muscles murqaha iyo lafaha aad u badan lafuhu dheereeya marka qofka saas uu ku korinoyaa sidoo kale murqahana waa weynaya body growth in response to the secretion of growth hormone is evident waxay si fiican kugu muuqan kartaa oo aad arki kartaa soo deynta body growthka oo mas'uulka uu ka yahay secretion of growth hormone waxaa si fiican ku fahmi kartaa isbedelka ama korinshaha ku dhaca ilmaha yararka ah childhood iyo adolescence-ga kadibna thereafter secretion of the growth hormone intaas wixii ka dambeeyana markii cunugii uu koray ama uu dhirkii loogu talagalay dhaafo yani uu dhamaystirmaan ka wadaa waxa uu growth hormonku waa sii shaqeeyaa wuxuuna maintain gareeyaa oo noo sii joogteeyaa the mass of the bone and skeletal muscles lafaha xooga lafta iyo muruqa dhumucdiisa iyo
howlahaasuu noo sii joogtayaa laakiin inta hore korinsho iyo dheeraansho ayuu mas-uul nooga yahay hormoonkan hormoonada oo hypothalamuska iyo anterior pituitary soo daayaan iyo targetka ka shaqeeyaan ayaa halkan ku qoran tablekan war yar oo khulaasaysan waaye oo jabtarka dhan xoogiisa inta laga wada heli karo halkan waxaa noogu qoran hypothalamuska mid uu soo daayo oo loo yaqaano growth hormone releasing hormone GHRH waxa waaye waa growth hormone releasing hormone waxaa soo daaya hypothalamuska wuxuu imaanaa anterior pituitary wuxuu qasabaa anterior pituitary inuu soo daayo growth hormone inuu soo daayo kadibna waxa uu growth hormone ku tagayaa most tissue organada jirkeena dhan uu ka shaqeyn karaa waxaa jiro kale mid kale oo gaar ah oo xira oo hypothalamuska laga soo daayo la yiraahdo growth hormone release inhibitory hormone la yiraahdo wuxuu diidan yahay in la soo daayo growth hormone it inhibits growth hormone inhibition uu sameeyaa growth hormone yaa la soo daynin uu leeyahay inta anterior pituitary yimaado wuxuu kaloo imaanaa anterior pituitary imaanaa haddana wuxuu diidayaa thyroid stimulating hormone inhibition uu ku sameynaa in la soo daayo labadan sidii meelay ka shaqeey jireen kan wuxuu ka shaqeey jiray most tissueska kanna wuxuu ka shaqeeyaa thyroid glandiga marka thyroid glandi pancreatic isolates most tissue ka shaqeey jireen waxaa kaloo inta nagu qoran thyrotropin releasing hormone oo hypothalamuska soo daaya wuxuu imaanaa anterior pituitary waxaa lagu qasbaa inuu soo daayo TSH oo ah thyroid stimulating hormone midnimada u arki doontiin waxaana mushkilad ma lahan thyroid stimulating hormone wuxuu ka shaqeeyaa thyroid glandiga in uu wax soo daayo waxaa kaloo inta kugu qoran maaragtay gonadotropin ama waxaa la corticotropin releasing hormone ama corticotrophic releasing hormone wuxuu ka shaqeeyaa anterior pituitary imaana wuxuu qasbayaa adrenocorticotropic hormone in la soo daayo adrenocorticotropic hormone waxaa ku arkaysiin waxaan xarfahan ayagoo gaagabsan buuggiina ka helaysiin buugga ka fiiriya insha allah dabcan pageka cashirkan oo aan qaadanayno ku yaalo ayaa ka fiiri kartaan xitaa slidekan ama sheeg maxaa la yidhaahdaa sawirkan hoostiisa xarfahan wixii laga soo gaagaabiyey hoosay kugu qoran yihiin anigu soo ma aanan qaadin buuggiina ka fiirsanaysiin ACTH wuxuu ka shaqeeyaa marka adrenal glandiga especially adrenal cortex halkaas marka hormoonadii kale laga soo dee doonaan prolactin releasing hormone wuxuu mas'uul ka yahay in la soo daayo prolactin wuxuuna ka shaqeeyaa naaska ama bristiga prolactin inhibitory hormone wuxuu inhibit gareynaa prolactin la soo daayo isna sidoo kale bristiga ka shaqeey jiray luteinizing hormone releasing hormone waxa la yiraahdo wuxuu ka shaqeeyaa isagana FSH iyo LH dabcan gonadotropin releasing hormone ovariga iyo tasii ka shaqeynayeen tablekan waa raadi kartiin buugga ku qoran yahay buugga hoostiisa waxaa ka heli kartaan sawirkan hoostiisa ereyadiyan wixii laga soo gaagaabiyo oo dhan meesha waxaa noogu qoran feedback mechanism oo la isticmaalo oo aad iyo aad muhiim u ah oo ay dhici karto inaa aragtaan ama u baahataan sida caadiga ah waxaa centerka laga maamulaya hormoonada dhan hypothalamuska wuxuu soo daaya hormoono magacooda waa sheegnay waxaa la yiraahdaa releasing hormones waxay imaanayaan anterior pituitary xitaa dareer posterior hadda maadaama anterior aan ka hadlayno anterior lobe of the pituitary glandiga imaanayaan oo ah control centerkii wuxuu soo daaya hormoonadiisa hormoonada uu soo daayanayo waa badan yihiin ilaa 6 hormoon waaye adi calaa kulli mid kamid ah la soo daayo waxaa magaca loo yaqaano hormoonada anterior uu soo daayo waxaa la yiraahdaa trophic hormones aa la dhahaa hormoneskaas waxay imaanayaan markay to the endocrine glands qanjiradii imaanayaan qanjirkii oo target organka ama target gland qanjirkii gaarka imaanaya qanjirkiina shaqadiisu qabsanaa markaas wuxuu shaqo qabanayo macna intaas ma fahanteen okay qanjirka markuu howsho qabanayo oo qabto oo qanjirka wax soo daayo fariina laabanayso oo hormoonkan ah oo ku laabanaysa meelihii laga soo amraayay waxaa leeyahay George hypothalamus naga George hypothalamuska dib u xiraa marka waxaa la yiraahdaa arrintan noocaas waxaa la yiraahdaa negative feedback inhibition ala dhahaa arjayna inaan fahnay waxaan qaadanaynaa marka hormoonka labaad hadda hal hormoon aan qaadanay growth hormone la yiraahdaa midka labaad waxaa la yiraahdaa thyroid stimulating hormone TSH the release of this hormone waxaa stimulate gareeyo releasing hormoneka laga soo daayo dabcan from the hypothalamus oo loo yaqaano thyrotropin releasing hormone TRH thyrotropin releasing hormone allaha hypothalamuska laga soo daayaa anterior pituitary imaana amar uu siinaa it stimulates growth and activity of the thyroid gland wuxuu TSH ku maamulaa oo madax ka yahay qanjirka la yiraahdo thyroid gland markii la imaado wuxuu thyroid gland soo deyn doonaa hormoonada labada ah thyroxine oo ah T4 iyo triiodothyronine oo ah T3 labadaas uu soo deynaa isagana qanjirkaas hormoonka saddexaad anterior pituitary uu soo daayo waxaa la yiraahdaa adrenocorticotropic hormone ala dhahaa adrenocorticotropic hormone ama ACTH
waxaa kaloo loo yaqaanaa corticotropin aa la dhahaa corticotropin ama corticotrophic ama adrenocorticotropic hormone waxaa mas-uul ka ah soo deyntiisana saameeya hormoonka la yidhaahdo corticotropin releasing hormone oo laga soo daayo from hypothalamus wuxuu imaanayaa anterior pituitary wuxuu leeyahay hala sameeyo ACTH promotes the synthesis and release of ACTH in la soo daayo leeyahay wuxuuna amarkaasi fulinayaa oo cidda shaqada qabanaysa ay tahay waa anterior pituitary-ga amarkan wuxuu ka imaaday from hypothalamus this increase marka ACTH marka la soo daayo shaqadiisa uu qabsanaa waxay tahay shaqadiisa increase the concentration of cholesterol wuxuu siyaadiyaa cholesterolka ama dheecaan hormoon yani maadada la yidhahdo cholesterolka inay badato iyo sidoo kaleeto steroidka marka haddii la keeno adrenal cortexka la isugu keeno cholesterol iyo steroidska la isugu keeno waxaa laga sameyn doonaa hormoono kale oo iyagana muhiim u adrenalka uu sameeyo waxaana loo yaqaanaa steroid hormones ayaa loo yaqaanaa hormoonka meeqaada marina afaraad waxaa la yidhahdaa prolactin this hormone is secreted during pregnancy to prepare the breast for lactation caanaha ayuu mas-uul ka yahay hormoonkan wuxuu diyaariyaa naaska ayuu wuxuu ku diyaariyaa caanaha especially wuxuu kaloo diyaariyaa during pregnancy markay hooyada uurka ay leedahay inuu breastigii uu suurtageliyo inuu caano soo saaro milk production after child period cunuga markuu dhasho kadib the blood level of prolactin is stimulated by marka in prolactin ay badato waxaa mas-uul ka ah iyadana soo deynteedana maamula hormoon la yidhaahdo BRH oo ah prolactin releasing hormone oo laga soo daayo from hypothalamus wax dhan waa isku wada mid hypothalamuska amar uu soo dhiibaa anterior pituitary gu imaana dheecaana la soo deynaa nooca la soo deynaya waxay ku xiran tahay amarka ka imaaday hypothalamuska dhankiisa waxaa kaloo jira mid kale oo isna joojiya prolactin la soo daayo oo la yidhaahdo prolactin inhibiting hormone isna sidoo kale waxaa laga soo daaya from the hypothalamus and by an increased blood level of the prolactin marka iyagaasa mas-uulka ah marka immediately after birth marka cunuga dhashay kadib isla markiiba suckling nuugitaanka cunuga ama jaqitaanka uu jaqayo naaska stimulates waxa ay fariin u tahay in la soo daayo prolactin secretion kadibna cunugii ama naaskii uu caano yeesho saasna cunugii uu caano kugu helo hormoonka ama hormoonada labada xaba ah ee noo dhiman lix ku noqonaya afartii hore lix nooga noqonaya waxaa la isku dhahaa gonadotrophins waa laba xabo just before puberty two gonadotrophins marka cunuga intuusan waxyar qaan gaarin agteeda hormoonada la dhaho sex hormoneska ama gonadotrophiniska ayaa la soo daayaa si tartiib ah loo soo daayaa increase in amount by anterior pituitary in response to waxaana isagana saameyn ku leh oo anterior pituitary inuu hormoonadan sex hormoneska xogaa marba mar soo ziyaadiyo mas-uul ka ah hormoon soo daayo hypothalamuska oo la dhaho LH oo ah luteinizing hormone releasing hormone iyo mid kale oo sidoo kale asna loo yaqaano gonadotropin releasing hormone oo isku labadooduba waxay mas-uul ka wada yihiin soo deynta LH iyo FSH marka rising level of these hormones by puberty marka hormoonadan ay ziyaadaan cunugii mar uu qangaaray kadib waxa ay shaqadoodu tahay promote inay sare usii qaadaan inuu cunugii u shaqeeyo qaangaarnimadiisii oo xubnihii taranka reproductive organismki inay si fiican usii koraan maturationkooda gaaraan in both males and female rag iyo dumarba markii laga hadlayo the hormones responsible ah hormoonada noo shaqeynaya waa kuwana oo la isku dhaho gonadotrophins waa labada xabo lixda ku noqonaya afartii hore waxa waaye FSH oo loo soo gaabsho follicular stimulating hormone iyo LH oo loo yiraahdo luteinizing hormone in both sexes rag iyo dumarba FSH wuxuu ka qayb qaataa production of gametes soo saaritaanka ugxaanta ninka waa spermatozoa naagtana waa ova ama gabadha waxaana soo daaya gonadis waa labada xubnood ee mas-uulka nooga ah ova waxaa soo daaya ovariga spermatozoana waxaa soo daaya testiska ama xiniyaha labadaas xubnood waxaa loo yaqaanaa gonadis loo yaqaana in female marka imaatid luteinizing hormone iyo FSH follicular stimulating hormone labadoodaba waxay mas-uul ka yihiin in the secretion of the hormones hormoonada la yiraahdo estrogen iyo progesterone oo dhiiga maamula oo menstrual cycle gabadha caadada ku dhacda bishiiba 8 maalinba mar ku dhacda cyclekaas ayay noo maamulayaan hormoonadan FSH iyo LH markii female-ka si gaar ah loo joogo progesterone iyo estrogen ayna soo daayaan ninka markii la imaado in male luteinizing hormone ayaa si gaar ah ugu shaqeeya ninka wuxuuna mas-uul ka yahay ama uu maaragtay loo yaqaana magaciisaba interstitial cell stimulating hormone oo ah inuu stimulate gareynayo interstitial cellska unugyo ku yaala waaye testiga ama xiniyaha
to secrete inay soo daayaan hormoonka ragga ee la yiraahdo testosterone-ka. intaas waxaan u gudubnay anterior pituitary. waxaan qaadanaynaa posterior pituitary. posterior pituitary waxa uu soo daayaa laba hormoon oo kaliya, oxytocin iyo antidiuretic hormone ADH oo la dhaho ama vasopressin. waa the hormones released from axon terminalis within the posterior pituitary. ADH iyo maaragta oo antidiuretic hormone iyo oxytocin labadaas bis uu soo daayaa posterior. marka xagga waxa ku haysatay 6 anteriorka, intana 2 ku haysataa. 8daas hormoon ayuu guud ahaan pituitary ku soo daayaa. oxytocin wax yar laga taabtay. oxytocin wuxuu stimulate gareeyaa two target tissue laba meel oo ka shaqeeya during and after childbirth. hooyada markay dhasho iyo intayna dhalinba labada marba way shaqo karaan. wuxuu ka shaqeeyaa labada xubnoo ka shaqeeya waxa waa uterine-ka yani smooth muscles ka ku yaala ilma galeenka uterus-ka and iyo muscles-ka of the lactating breast. طبعا معناها smooth muscles-kaasi riximka ama maaragtay smooth muscles ku yaala iyo murqaha kaleeta ee breastiga ku yaala maaragtay ii sheeg caanaha naaska lagu diyaarin lahay labaas meel buu ka shaqeeyaa. marka caana soo saaritaankan waa ka shaqeeyaa, uurkiina waa ka shaqeeyaa. macnaha oxytocin-ka iyo especially wuxuu kaloo ka shaqeeyaa suurtagelinta hooyadii inay dhasho ama laborkii oo kale foosha. hore u sheegnay labadan eray. slide-kan waa nagu soo laabtay. halkan waxaan ugu qoran summary ku saabsan ama khulaasatul qowl ah hormoneska uu soo daayo anterior pituitary gland iyo shaqada ay qabanayaan. waa soo wada akhrinay, waa soo dul marnay, meeshiisa ku akhrista. waxa macnaha hadda aniga aan iga baahantiin haweerati ma jirto, meesha uu ku khulaasaysan yahay waa akhrisan kartiin. hormoonka labaad wuxuu ahaa kii hore oxytocin mehen oo kana ADH ama antidiuretic hormone ama waxaa la yiraahdaa vasopressin. the main effect of antidiuretic hormone is to reduce urine output. shaqada ugu weyn oo ADH oo ku qabto waxa waaye inuu kaadi soo saaro, yani inuu kaadida yareeyo, urine output inuu yareeyo. wuxuu diidan yahay volume badan oo kaadiha inay khasaarto. marka diuresis waxa la yiraahdaa waa the production of large volume of urine. marka wuxuu diidan yahay diuresis kaas uu diidan yahay. waxa la yiraahdaa antidiuresis ama antidiuretic. macnaha wuxuu diidan yahay production of large amount of urine. ADH wuxuu kaloo ka shaqeeyaa distal convoluted tubooyinka gadaale oo taqaanaan dabcan markii nephroniska laga sheekeynayo qarqaroofan kuwaas uu ka shaqeeyaa. iyo sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa tubooyinka ugu dambeeya nephronka uu leeyahay oo la yiraahdo collecting ducts kalidu meesha ay ku filter gareyso ku shaqshaqdo waa markii kaadida sameynayso. qanjirka ugu dambeeya aan qaadanayno waa thyroid gland, which is the last one. thyroid gland is maanta yani aan ku egnahay. thyroid gland is situated in the neck in front of the larynx. wuxuu ku yaala qoorta, wuxuu ku aadan yahay meeshan bocorka agtiisa iyo trakeeyada. adig ku aadka lafaha marka la tirinayo lafta shanaad cervical vertebra lafaha la dhahayo midda shanaad iyo lixaad iyo toddobaad meel ku aadan. wuxuu kaloo sii gaari karaa ilaa xataa thoracic vertebraha mideeda koobaad. is highly vascular gland waa qanjir aad u xidido badan. waxaana lagu qiyaasaa miisaankiisa 25 gram. waxaana ku hareereysan xuub la yiraahdo fibrous capsule. wuxuu u eg yahay butterfly-ga ama balanbaalista muuqaal ahaan haddaa fiirisid. maxaa yeelay wuxuu ka kooban yahay laba baal oo ka kooban yahay oo dhexdana uu kaga aadan yahay ama ugu yaalo wax yar oo cartilage camal ah oo la yiraahdo isthmus. marka sida balanbaalista oo kale waa laba garbood oo weyn leedahay, dhexdana dhuun yara uu dhex taala. saas oo kale waa marka isthmus ala dhaa qaybta dhexe isku haysta. marka laba loobo oo labada garbaha taala iyo dhexda oo isthmus uu ku yaalo. sawirkiisi waa kana. isthmus-ka haddii aad rabtid waa meeshaas dhexe oo isku haysta. loobka weyn waa kana oo left lobe kana right lobe ala dhahaa. okay, marka anterior pituitary waxaan ka wadaa thyroid gland waa kaasa. wuxuu leeyahay arterial supply oo ah xidido dhiigga siiya. arterial blood supply oo glandigan waxa ay yihiin superior and inferior thyroid arteries. inferior and superior thyroid arteries macnaha labadaas xidid uu leeyahay. superior thyroid artery wuxuu ka imaaday external carotid artery. inferior thyroid artery wuxuu ka imaaday subclavian artery uu ka imaaday. wuxuu noo soo daayaa laba hormoon, thyroxine oo ah T4 iyo thyronin oo ah T3. labaas hormoon oo soo daayaa. iodine marka waxay tahay meeshan hadda maadada ugu muhiimsan. iodine is essential for the formation of the thyroid hormones. thyroid hormones inay sameysmaan T3 iyo T4 inay sameysmaan iodine muhiim u ah. waana sababta T4 iyo T3 u kala dhahnay. midda T4 ka la leeyahay 4 iodine ku jirto, midda T3 ka la leeyahay 3 iodine ku jirto. waa meesha ay ka keeneen magacyada macnaha. the main dietary source of iodine meesha ugu badan cunada ugu badan ee laga keeno iodine laga helo waxa waaye cunada oo badda seafoods waaye. malaayga iyo fishka iyo waxyaabaha la midka ah. vegetables grow in iodine rich soil. qudaarta ku kora ama ka baxa dhulka oo carsanka ah oo iodine fiican ay ka buuxdo
iyo maaragtay markii marmarka qaarkood waxaa laga helaa cusbooyinka cunnada lagu darsado qaar kamid a oo la yidhahdo iodinated table salts way diyaarsan yihiin iodized salts aa la dhahaa cuntooyinka lagu karsado magaaladana way taallaa oo iodineka waa laga heli karaa. The thyroid gland selectively takes up iodine isaga ayaa doorta oo dhiigga kasoo dhex qabsanaya iodinta processka uu ku qaato waxaa loo yaqaanaa iodine trapping aa la dhahaa uu dabana dab saas u dabana macnaha iodine uu ka degsana dhiigga. The release of T3 and T4 into the blood is stimulated by thyroid stimulating hormone. T3 iyo T4 in la soo daayo dhiigga lagu sii daayo waxaa iyagana amar siiya TSH oo laga soo daynayo from anterior pituitary-ga oo hore aan soo aragnay. T3 iyo T4 shaqadooda maxay tahay marka? Kow waxay ka shaqeeyaan qodobadan waa iska fiiriya. Increase the basal metabolic rate waxay ziyaadiyaan xawaara dhaqseedka jirkeena cunnada uu ku shiido iyo sida kulaylka loo soo saaro heat production ayay mas'uul nooga yihiin. Shaqada labaad waxa waaye regulate metabolism of the carbohydrates, proteins and fat. Waxay burburiyaan oo ay dheefshiid u sameeyaan cunnooyinka saddexda nooc oo dhan haddii aan leed carbohydratekii sokorta ah proteinkii iyo fatskii intaba dufankii. T3 iyo T4 waxay muhiim u yihiin essential for normal growth and development. Waxay muhiim u yihiin korinshaha normalka ah ee jirkeena iyo yani developmentiga xagga caqli ahaan in ilmuhu u koraan inay muuqaal ahaan u koraan waa growth normal growth. Developmentina waxaa qofka cunuga inuu mental ahaan u koro. Especially waxay koriyaan skeletal muscleska oo ah dhinaca yani murqaha skeletonka aan ka wada cafan qalfoofta lafaha qofka inuu dheeraado waa normal growthki waay. Nervous systemkana way koriyaan waa developmentiga marka aan tilmaamayni labada marba waa kuwaasaan. Most other organs meelo kale badan ay ka shaqeyn karaan oo xubno kale oo muhiim ah waxaa kamid ah oo thyroid hormone ka shaqeeyo waxaa kamid ah the heart wadnihiya kamid ah waxaa kaloo kamid ah skeletal muscleski murqaha waxaa kaloo kamid ah maqaarka waxaa kamid ah xubnaha dheefshiidka oo caloosha iyo uurku jirta digestive systemka iyo systemkan taranka ee reproductive systemka dhammaantood way ka wada shaqeeyaan. When there is an under activity inay shaqo muhiim ah qabtaan waxaa ku fahmaysaa oo shaqadooda muhiimadooda arkaysaa haddii culays uu ku yimaado hormoonkan oo T3 iyo T4 ama ay yaraadaan ama ay badnaadaan markaas aa fahmay waxay tari jireen. Marka more evident when there is under activity or over activity waxaa si fiican u fahmaysaa markii under activity ay dhacdo oo T3 T4 aysan si fiican u shaqeynin ama over activity ay aad badataano hyperthyroidism ayaa loo yaqaanay ee aad u soo badato oo thyroid glandiga oo zaad u soo saaray ama uusan soo saarin labadaas marba waa fahmi kartaa haddii hypothyroidism ay jirto waxaa la dhahaa hypothyroidism waxaa loo isticmaalaa markii waxaa la soo daynayo ay yaraadaan oo T3 T4 soo dayntooda uu yaraado asbaabo badan ay keeni karta markaas shaqada ay qabanayeen waa maqanta marmar qaar waxaa jirta oo ka badbadiyo oo thyroid hormoonka T3 T4 badan uu soo daynayo oo la dhaho hyperthyroidism aa la dhahaa. intaas ayaanu ku joojinaynaa maanta aad baa u mahadsantihiin insha allah wixii su'aalan insha allah waqtiyo kale ayaan isweydiin doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi